dadka Soomaalida ee gudaha ku jira khaasatan reer Boosaaso iyo dadka dibadda jooga walaalaha ah oo Soomaalida ah baan u soo jeedinay baaqaas alxamdulillah ma hadoo dhan Allah leh walana ajiibay dad badan baana ajiibay dad badanna malaha way noo dhiman yihiin waxaan aad iyo aad inii mahadinaynaa bacda Allah subhanahu wa ta'ala ma hadda Allah leh isagana wama tashaa'una illa in yasha Allah mashi oo dhan iyo wixii la qabanayaba ta Ilaahay bay ku xidhan tahay subhanahu wa ta'ala marka dadkii lacagaha noo soo diray oo tamartooda ku soo diray oo dibadda nooga soo diray oo gudaha nooga soo diray haweenkii dibadda dhalinyaradii dibadda xataa qaarkood ay ku jiraan arday tamartooda na tusay oo ma aragtay inay waxay awoodeen noo soo direen tijaartii dibadda oo meel kasta nooga soo diray hadda tijaartii joogay Shiinaha ay nagu soo direen lacag dadkii gudahan wax nooga soo diray khaasatan reer Boosaaso iyo Garawa iyo meelaha kale nooga soo diray lacagta dhammaantood Ilaahay waxaan u baryaynaa in Ilaahay caafimaad siiyo dawladda federaalka ah iyo maamulada Soomaalida waxaan ugu baaqaynaa dadka gurmad degdeg ah in loo fidiyo meelaha ay joogaan laga soo raro oo si degdeg ah wadankooda loo soo gaarsiiyo waxaan kaloo ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ah oo walaalaha ah inay ka qayb qaataan sidii loo rari lahaa oo doonyo loo diro maraakiib loo diro lagu soo raro wadankoodii iyo dadkoodii iyo ehelkoodiina lagu soo gaarsiiyo inta halkaan timaada insha Allah waxaan rajaynaynaa gacanta Ilaahay waa furan tahay arsaaqda Ilaahayna waa waasac wixii halkaan yimaada Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuusan nagu ceebaynin waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa arrimahan maanta fulinayno sharikaadkii asalka u ahaa oo ah Amal Bank iyo Barwaaqo oo shimidka ah oo iyaguna hadda fududeeyay taqriiban 360 qof in maanta la diro kuwa kalena waanu diri doonaa insha Allah biidinillaahi kariim marka waxaan baaqayga ku sii xoojinayaa waan kuna sii adkaynayaa baaqi labaad oo aan ku sii xoojinayo culimada bulshadu inay ka qayb qaadato u hiiliso u soo gurmato yani ummadda Soomaaliyeed ee soo qaxaysa ee ay ka baaxad weyn maamulkayaga shacabkayaga inta oo dhanba waxaan kaloo iyadana ku sii xoojinayaa hay'adka caalamka gaar ahaan kuwa islaamka inay iyaguna qayb weyn ka qaataan oo ay fara soo geliyaan dawladda federaalku inay ka qayb qaadato run ahaantii keenidooda iyo diridoodaba